gudoomiyaha waxbarashada degmada xudun hodan cabdiqaadir sugulle ayaa xarig ka jirtay iskuulka alnuur hoose dhexe ee degmada Orbogoys kaasoo ka mid noqon doona iskuulada waxbarashada ee ka shaqayn doona degmadaasi. gudoomiyaha halka ku sugnaa saacado badan ayaa kulamo goos-goos la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada bahda waxbarashada iyo dhammaanba guud ahaan shacabka ku dhaqan halkaasi. sidoo kale dadweynaha ku dhaqan degmada Orbogoys ayaa soo dhaweeyay iskuulka cusub ee laga hirgeliyay degmadaasi iyagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen waxaana hadaladooda ka mid ahaa sida tan. سلام كبعدي إسكول كان هل كان لقى فري لأنه كاني إذا اللي يرد عم قالوا صبرتها كانتي هذه بان أسود وينينا أنا جو أسود وينينا أنا نوبة عن طيب مقالة سكول لبعض يمس تحد متكستبوا بعن طيب سبب الطهي لأن يرد يوم الشمع شو مقالة هذه ببنيهين أنا نوبة عن هاي wixii caqabad soo kordha inaan soo dhaweeyno oo waalidahan dadkeenan caruuraha dhalay ay aad soo dhaweeyaan wax kasta oo caruuraheenu ay horumar ku gaarayaan haday quraan tahay iyo haday maad tahay labadaba diinay maad mid kastaba inaan ku soo dhaweeyno aad aynu ku soo dhaweeyno xaq baynu u leenahay marka qoladan inoo timi jisaal kun baan leenahay ilaahay idina ajar iyo xasanaad haydan ka siiyo waxbarashada aad noo soo kordhiseen intaas ayaan ka baxay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. golaha kan xafladda iskuulkan primary school alnuur lagu furay oo xarig jarkiisu ka dhacay inta ka soo qayb gashay heer degmo iyo heer kormeer dhammaanba iyo golaha ka soo qayb galayaasha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. inta haddaan ka gudbo kulley halakani waxa weeyaan waxay ahayd meel waxbarasho dadkii waalidiinta ahaa oo markii hore abaabulkeeda iyo dhismaheeda iyo inay hirgasho juhdiga ku bixiyay waa ahayn waanu u baahnay soo dhaweyn aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa dadka waxbarashada koruqaadkeeda horumarinteeda haddii alla midna waxyaabo badan oo aanu kulley u baahnayn oo baahidoodu ay oo nala kala gaabiyeyna waa jirtay marka hadday noo soo bilaabatay waa idinku hambalyaynaynaa waa idinku soo dhaweynaynaa xafladan qiimaha badan ee lagu furayo primary school alnuur primary schoolka hoose dhexe ee alnuur la yiraahdo dhammaan dad ka soo qayb galay mudanayaal iyo marwooyin aad iyo aad baan u salaamayaa anigoo ku hadlaya afka kormeeraha guud ee degmada xudun ee ka tirsan wasaaradda waxbarashada ahna gudoomiyaha guddida waalidiinta ee degmada xudun aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa 100% iskuulkan ay maanaha abaabuleen nimanka dhalinyarada ay waxbartay ku fekeray inay dadkoodii iyo waalidiintoodii iyo deegaankoodii ay wax ku celiyaan aqoontii ay barteen inay caruurtii iyo jiilkii yaryara ay la wadaagaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuul soo kordhaana iskuulkii horena wax ma yeelo dadkana wax ma yeelo waxa uu keenaa waxbarasho cusub wuxuu keenaa hami cusub wuxuu keenaa tartan wuxuu keenaa labada iskuul ama labada xarumood ee waxbarashada inay ku tartamaan sidii ay waxbarashada u hagaajin lahaayeen marka iskuulkan iskuul waxyeelaya degmada Orbogoys maaha iskuulkii hore wuxuu dhimaya maaha waa iskuul ku soo kordhinaya aqoon iyo waxbarasho iyo dadaal iyo juhdi. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. aad baan u salaamayaa murtasharafta ugu horeeyo gudoomiyaha waxbarashada ee degmada xudun iyo macallimiintaydii cali aadan ugu horeeyo aad iyo aad waalidiinta aad baan u salaamayaa dhamaantood. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kawte dhalinyartii hore waxa weeye haddaan ka warbixiyo iskuulkan meesha uu hadda waxa weeye xilligii la furay bishii 10aad ee sanadkii hore aan dhaafay 2021 baan furnay wax badan buu nala soo maray insha Allah biidnillaahi kariim. haddeerna meel fiican baan maraynaa waxyaabaha la taaban kara waxaa ka mid ah
inuu waxa weeye milcaamadda keliya ee tartankii aaday ay tahay oo 4 arday ka tageen oo kaalmo fiican ka soo hooyeen inay tahay meeshan ay tahay meesha macallin kastoo soo boqdo yimaada uu ka yaabo aqoonta dhexdeeda taala oo macallin walba hadda aan sameynay inaanu macallimiinta tuulooyinka kale seminaar aanu siino oo koorsi aanu siino oo aanu ku waxa weeye maadaama meesha meel aqooneed ay tahay oo doonayso deegaanada ku xiran oo dhan inay waxa weeye aqoonta ka dhisto oo ay anfacdo inaanu waxa weeye ardaydaas bari ka gacanta ku haynana inay la wareegaan ama tababarana insha Allah billahi kariim hawsha ay qabtaan oo iyagu ducaad iyo culimo iyo waxa weeye aqoon yahano aan ka soo saarno idinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa hadafkiisu saas ayuu yahay oo waxa kelmadeyda halka ka soo jeediya oo ah iskuulkan hadafkii loo asaasay waayo waxyaalaha ugu muhiimsan inaan sheegno hadafka loo asaasay iskuulka hadafkii loo asaasay waxa weeye waa dadka wada dhagsantihiin waa meel aqooneed weey xoolaha waxaa loo keenaa dadka inay ka cabaan biyo insaankuna siisaba waxaa nolol u ah oo uu quutaa waxa weeye waa aqoon haddii aqoon laga waayo wuxuu noqdaa isaga iyo bahalka isaga iyo xayawaanaadka kale noloshooda bay wadaagaan waxyaalaha keenaya markaa qofkii inuu sameeyo bini aadanka insaanka ilaahay karaameeyay ilaahay wuxuu walaqad karramna bani aadama ilaahay insaanka uu karaameeyay marka waxa uu karaameeyay waxa weeye inuu xayawaanka ka duwanaado marka qofku hadaan aqoon helin oo cilmi aanu helin waxa dhacda inuu ka yimaadaan ama uu sameeyo waxyaalo aqliga u diidayo waxyaalo aad u liita marka waxyaalahaas oo dhan waxa ka hor istaagaya waa aqoonta iyo cilmiga hadduu cilmi qofku helo علمنا هو أول العلم وحوي إن الله سبحانه وتعالى بريت العلم وحوي قال الله وقال الرسول مركا وحكلت وحويهين ويدبر حسين ويسوي كحلي مركا قابتن وحا أي هدف كيدو هاي إني سو صارته داير أقول له علم له الله الرحمن الرحيم إلهي بمهدس كله mar hore iyo mid dambeba isugu keenay xafladan qiimaha badan sida waxaan loo soo agaasimay iskuulkan waan u baahnayn maxay haytooy hadii la moodayo iskuulkeen hore inuu durayana maaha mid duraya waa mid aan u baahnayn oo ka dhinaa meesha ilaahay baan ku mahadinaynaa kuwii nooga soo shaqeeyana waa ku mahadinaynaa iyagana mar hore iyo mid dambe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta waxaan salaamayaa ummadda halka isugu timi iyo shacabka reer Awrboogaysaad iyo maxaan ku dhahdaa kormeeraha inoogu yimid degmada Awrboogaysaad waa markii ugu horeysay ee aan xalfad ku kulano Hadan Cabdulqaadir oo maxaan ku dhahdaa dhawaan ka noqotay gudoomiyaha waxbarashada degmada Xudun oo lagu soo dhaweynayo maanta degmada Awrboogaysaad iskuul cusub oo laga furayo waxaan ku leenahay Hadan ku soo dhawow degmadu waa degmadaadii waxa weeyaan dalkaad wax soo baratay waxa weeye dalkaad soo tacabtay waxaan u malaynayaa de kale waxbarashada in badan baa laga hadlay waalidiintu way hadleen wax kale ku darimaayo laakiin waxaanu ku soo dhaweynaynaa haween ahaan iyo ka dhalinyaro ahaanba inaanu Hadan Cabdulqaadir aanu nahay garabkeedii markastana aanu leenahay wixii maxaan ku dhahdaa wax qabada iyo wixii waxbarashada ee u ah waxtar iyo wixii dhalinyarada iyo ciyaalka soo kobcinaya soo korinaya inaad maxaan ku dhahdaa inala ogaato talabaadan ku darsanaya waxa weeyaan waalidiintu inay la dadaalaan ubadkooda iyo awlaadooda oo aanay oran de iskuulba halkan ka furan iyo waxbarasho kala jirta maadaama ay waxbarashadu isku mid tahay iyaga waxa dan ugu jirtaa sida taa hore u taabaqaaday ee waxbarashada maxaan ku dhahdaa ardaydu ugu qalin jabisay inay tanina u taabaqaadayso degmaduna inta waxba ku soo kordhaya waxba kama sii dhacayaan marka waxaan idin leeyahay waalidiinta inaad tacab ku bixisaan waxbarashada oo aad soo dhaweysaan oo aad ubadkiina u dirtaan oo aad u halgantaan xaq baad u leedihiin Hadanna waxaan leeyahay welcome Awrbogays waa markii kuugu horeysay aad timaado waan kugu soo dhaweynaynaa hambalyo ilaahay waa subxaanahu wa ta'aala mahadle isugu keenay iskuulkeenan cusub Al-Nuur Primary School Awrbogays maanta aad farxad weyn bay noo tahay in iskuulkeenii labaad uu inooga furmo degmadii Awrbogays iskuul hoose dhexe oo loo baahnaa waqtigii loo baahnaana yimi
waxaan maanta ka soo kicitinay degmadii xudun ahayd oo ay degmadani hoos tagto go'aanka iyaga iyo qastiga iyagu wuxuu ahaa inaanu fidinta waxbarashada sii wadno haddaan anigoo ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada waxaan ku hadlayaa wasaaradda afkeedii ilaa heer dhexe ilaa heer gobol anaa uga wakiila degmadii waxaanu ku faraxsannahay ka wasaarad ahaan waxbarashada fidinta ee sii soconaysa biidnillaah ee ka bilaabmaysa waxyaabaha la dhaho dadka mutacalimiinta baa garanaya keejiga waa barbaarinta iyo qalin ababka ilmaha yar ee 6 jirka ka bilaabma inuu helo waxbarasho xora oo wax ku baran karo oo maxay tahay ku tagi karo ku diyaar garoobi karo sidoo u sii wato hamigiisa nololeed maadaama ilmo yar oo dhabta lagu hayay ka dhaafay oo uu tagay 6 sano jir ilmaha 5 jirka ah 4 jir buu ka bilaabmaya 5 jir 6 jir waa inuu helaa waxbarasho asaasiya oo uu ku soo maxay tahay barbaaro si uu gaaro heerkiisa waxbarasho ama hamigiisa waxbarasho ee heer jaamacadeed waxbarashadana waxa laga bilaabaa sida aad ogtihiin keejigu waa caruurtan yaryar ee la rabo qalin ababka la dhaho ee la rabo in la horumariyo wasaaradda waxbarashadana go'aanka ka go'an waxa weeye in la waayo fidinta waxbarashada wax la dhaho inay samayso oo la waayo ilmo yar oo wax qora aan wax qorin aan wax akhriin wasaaradda waxbarashadu yoolkeedu waa inta maantana ilaahay wuxuu noogu sahlay degmada iyadii Awrbogays inaanu ka furnay iskuulkan la dhaho Al-Nuur Primary School Awrbogays insha Allah bismillaahi kariin fikradda dad dhalinyaro oo degmada abaa dhaliyay annana waanu la qaadanay ilaahay idankii waxaanu ballan qaadaynaa ka wasaarad ahaan anigoo afka wasaaradda ku hadlaya agabkii waxbarashada ee iskuulku lahaan jiray Al-Nuur inuu ka mid noqdo iskuulada gobolka ku soo kordhay ee faa'iidada noo ah ee waxqabadka noo ah ardaydaasina ay noqoto maanta aanu qoranayno primary-ga iskuulka lagu aasaasayo inay noqoto arday tayo leh oo wasaaradda waxbarashada baaldahaba ka gasha maxamed maxamuud cawil kawte degmada Awrbogays ee gobolka Sool.